inan ku mashquulay Safiya Tusmo ee leeyahay Safiya Tusmo habli yaraabay nagu dirtay adeer waxaan idin leeyahay way u qalantaa Safiya Tusmo boqol haraad qori maandhiyara ah iyo baarqabkoodii intaba way u qalantaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan aad iyo aad u salaamayaa walaalaha qalbiga walaalaha qaaliga walaalaha ku xidhan walaashood farduud tansaani waxaan leeyahay kusoo dhawaada oo mar kale iyo isku soo noqo dambe oo xiiso leh kulan wacan oo wanaagsan ayaabaan idin leeyahay walaalaha waan idin jecelahay inta aan subscribe ii saarinay haddii aanad subscribe ii saarin subscribe ii saar waa meesha era guduudan ama cas dhabku sii waxba ku yeeli mayso anna waxbay ii tahay haddii aad hore iila socotayna haddaad aragto muuqaalkaygan leegta suulka sidaa ma hadee waa ka saa u taagan dhabku sii kan sidaas ah waa dislike haygu samaynina laakiin leegta suulka ii saara haddaad aragtaan commentigaaguna wuxuu ii yahay inaad igu dhiirigeliso wixii iga dhiman ee fikra halkaa iskaga reeb fikirkaagu waa ii muhiim marka maanta maxaynu ka hadlaynaa maanta waxaan ka hadlaynaa raggii adduunka hadda dee rag inta wanaagsanay dee waaba guryahooda iska dhex fadhiyaanoo social media ma soo galaan hadday soo galaan wax khayr labay kusoo gudbiyaan marka aaladda social media horta ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu fitan badan bay leedahay inuu ilaahay fitanka inaga ilaaliyo oo fitankeeda inaga ilaaliyo way ina jiidanaysaa mararka qaar hadday doonto marka ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa aanay jiidanina ta-aan jiidan maxaan idhe qofka ay jiidan dhibaatada social inuu ilaahay iga dhigin aamiinta iisoo dhaha waa marka hore horaameed maanta maxaynu ka hadlaynaa maanta waxaan arkaynaa raggiyo social media qaw hayaay Safiya Tusmo lagu meheriyay 120 geela war way u qalantaa baan leenahay 120 geela qofkii labadii qof kii haystana iyo tii labadii qof waa habartan weyn habli yareeraan ugu diraysa hadday habli yareeraan oranayaan 120 Safiyo dhowr guur soo martay Safiyo garoobtu walaala maaha ma liidato qof walbana waa wixii ay ku heshiiyaan laba kastaaba waa sidii ay ku heshiiyo garoobtu ma aha gabadh liidatee nin daciif ah helay ayaan anigu aaminsanahay marka habartan weyn 120 geela laga qaadayay 120 geela laga bixiyay adeeran qofkii labada qof ee iskuursanaysa waa waxa ay ku heshiiyaan horta heshiis lagama baxo heshiisku waa wixii aad ku heshiisaan ma garatay marka heshiisku waa wixii aad ku heshiisaan qofkan qof baa 120 geela aad ku heshiinaysaan uu ka aqbalay 200 gram oo dahabaad ayaad ku heshiinaysaan uu ka aqbalay laakiin waxa meesha xun uun igu sawir hadday igu sawir kaa gasho adeero waa dembi diiniyan lama ogola qaar baa waxay yidhaahdeen waxay tiri anaba kaa daynaya waxaad tiraahdaa halkaa goobta un ka dhig 120 halkaas un ka dheh ayaabay tiri maynaan ogeyn dembigaa ma qaadi karno meeshii ay arrinkaa ku idhaahdeen maynaa joogin allana nama dhigo markaa social mediaha qof waliba fikirkiisa yar ee saliimka ah ayaabuu kusoo gudbinaya uu leeyahay sidaa iyo saasaa jirta laakiin anu waxaan idiin sheegayaa qof kastaaba laba qof oo kastaaba waa siday ku heshiiyaan 120 geela way u qalantaa ama ha soo guursato ama garoob ha ahaato ama islaan ahaato waa gabadh Soomaaliyeed oo dhaqankii iyo hidihii iyo Soomaalinimada xambaarsan oo lagu dhalay waxaan anigu aaminsanahay oo aan aad iyo aad u aaminsanahay waxaan aaminsanahay inay xitaa 100 haraad iyo baarqabkoodii baa ka maqnaa waxa qorigii maandhigaraha la oran jiray ee gabadha Soomaaliyeed u qalmi jirtay ayaaba ka maqan marka 100 geela ayuu 120 geela ayaaba qaar baa xitaa ku kankul gargaraystay way ku calculator ula tageen lacagnimo haddana calculator waxay ula tageen dahab intuu ku noqonayo 280 dahaba ayay noqonaysaa qaar baa 200 oo dahaba laha 2 kiilo maxay dahaba qaar baa waxay sheegayeen
laakiin waxaan leeyahay anigu way u qalantaa Safiya Tusmo in lagu meheriyo 120 geela waliba waxa ka maqan qori maandhi yara iyo beerqabkoodii ayaaba ka maqan hablihii dadkeeni dadkii Soomaaliyeed ninka aan haysan 100 halaad iyo beerqabkoodii iyo qori maandhi yara ah heede adeerow inanta ninkaasi ma buha weysan jirin ba marka in sidan loogu qayliyo Safiya Tusmo waxa ay cadaynaysaa marxaladda gabdhaha Soomaaliyeed ay iyagu isdhigeen iyaga isliigay mid kamara qaawan laga duuba iyo mid nin ilaahdana xabadkaaga soo diro qaawan iyo mid habeenkii casho yar inta la siiyo sidii doonto loola dhaqmo iyo inaga ayaaba halkastaaba halka isdhigto ayaa lagu qolaa halkasta maxaa la yiri shililka ay isdhigtaa lagu qolaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaga waxa macallin inoo aha inta markaan ka soo gudubno nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa macallin inoo aha isagu wuxuu yiri hadaa doonaysaan gabadh baraka qabtaay waxa aad samaysaa meherkaaga yaree gabadha ay ka meher yar tahay ayaabay ka baraka badanta gabadha lagu meheriyo $500 iyo $200 lagu meheriyo waxa baraka badan $100 lagu meheriyo $1,000 waxa ka baraka badan $500 lagu meheriyo $500 lagu meheriyo waxa ka sii barafanta $50 ma garatay marka gabadha ay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ka meher yarta ay ka baraka badan tahay maantana waxay noqotay noloshii igu sawir ayaabay noqotay hadda waxa dhacday qisa layla soo wadaagayay gabadhii ay ku dhacday ila soo wadaagtay waxaan ku culimadeynu geynayna waxay tiri waxaan ku dhaanu sheekad ma ihi culimana ma ihi qof sheekha ma ihi culimada iyo dadka ehelo cilmiga ah soo weydiin laakiin anigu sidii aan ugu jawaabaan idinka sheekaynaya waxay tiri waxaan ahaa gabadh garoob ah ninkii waxaan ka dhaadhiciyay bay tiri in aan iraahdo walaalo waxaad igu meherisaa inaan ahay gabadh aan weli guursan ee garoob ha iga dhigan ninkii iyo gabadhii sidii bay ku mehersadeen gabadha hore ma loo soo guursaday maya haye gabadhii iyo ninkii madaxa isla galeen sababtay madaxa isla galeen qofka bini aadanka ah horta noloshaada in aad been ka sheegto waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa diiday marka noloshaada been ha ka sheegin marka waxay tiri halkiiba madaxa la isla galay meher been uu sheegay markhaatiga ku meheriyay been buu noqday ilaan gabadhu markay garoobtay maxay u qarinaysaa garoobtaaba sharaf badan haddaad garoobtay sababta aad u qarinaysaa maxay tahay waa inaad tiraahdaa garoob baan ahay haddaad wax dhashayna waxbaan dhalay haddii aad weliga maxaa beenta kugu xaaqsaday maxaad nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam gurguurarkiisi ka mid ah arooskii habeenkii lasoo galbiyey markii lasoo galbiyey dumar sharaabkii uu cabbay marwadiisina uu siiyey laba gabdhoodoo la socday arooska ayaabuu ku yidhi hablahaana u dhiib hablahaasina hawsii dhiib hablihii waxay yidhaahdeen laa nashtahid yacni uma baahnin oo kale carabti waxay ka dhigantay laa nashtahid waxa weeyaan uma baahnin waxay yidhahdeen laa nashtahid uma baahnin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hawdaqa beenna يعني بينها هالشيء باهيدي كويسينا هكبر شيء لبعض الحالات با هكبر شيء مركا حداد هدو طولة نلاش هذا يوحانت وحانت مثل حتى إن وحانت لغسين وكلواليس يا وعين كانوا تنصفان بين نقنس ودنبي مركا إن أنتاس دنبيجو وحابة أو فيلم قف كان حتى يمكن ما تحبي يسكول تيران ما تحبي سبب تسكول تيران أو حكم تاعي تين أنتي جر حتى واحد وحولي قراب به المركب كورس دي مرخاتي دي واحد هذين مركي أنا كويدي نم حد أولون ويدي قراب ويان إيه قراب معها ما قرأتي مركا
way dhacdaa oo dadka qaar baa waxay leeyihiin waxa weeyaan arrinkan igu sawir xataa anigu waxaan u soo jeegay qaar 100 gram oo dahab ah qabsaday oo 100 gram dahab ah fulush ka noqotay oo markii la isqabsaday madaxa la isla galayna uu codod ka diyaariyay codod oo ehelkeedii uu u banka u dhigay uu yiri meherka anigu codkaas marxaati ah maalintii waxay igu tiri si lay amaano oo lay de riyaa iyo istusnimo lay amaano adeeray waxa tirada 100 gram oo dahab ah ayaabaan bixinaya waraadiga nino hadaad beentaas aad ka aqbasho adigana deyn iyo dambi labadiiba waad ku dhacday gabadha ma garanaysaa gabadha ahna habba lagu meheriya gabadha garoobka mid waliba waxa ay xagga diinta ka leedahay de marxalad bay ka taagan tahay marka marxaatiyadaana ka muhiima haddii marxaatiyadu waxaanay ogeyn marxaatiya furaanna de waa dambi marka waxaan idin leenahay war noloshiina dhabta ah ka qurux badan haddaad adeer koobka biyaha haysato koobka garan biyaha koob biyaha baan haystaa marka iska ilaaliya beenta way dhacdaa inamadan ooyay qaylinayawna adeer way u qalantaa safiya tusba 100 halaad iyo baarqabki iyo qori maandiyara intaba way u qalantaa ka ilaaliya ciyaarta asxaabta waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh